maanta waxaanu isugu nimid inaynu daah furno ololaha dhirbeerista Soomaaliyeed oo xukuumadda nolol iyo nabad qorshaha qaranka tubaha ugu jirta in la beero dalka laga beero 1 milyan oo geed oo wax ka tara biicada wax ka tara bilicda wax ka tara dhiraynta dalka taasoo halbeegyada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta daaqa laga rabo tubta horumarinta dhaqaalahana ugu jirta in ay hirgelisay in dalkani iyadoo la kaashanaysa xukuumadda Soomaaliya dalkan uu ka hirgalo deegaamayn in deegaankii la qurxiyo in dhirtii la beero in bilicdii la soo celiyo dalkani lahaan jiray waxaan ku talagalnay in sanadka 2019-2020 ay suurto gashay ilaahay idamkiisa 1 milyan oo geed in uu dalka laga beero waxa ogtihiin xaalufinta ba'an ee dhirta lagu hayaa in ay dhibaato u geenaysanayso bilicdii iyo deegaankii in ay dhibaato u geensanayso dalagii xoolaha roobkii aan la helahayn waayo haddaanay dhiri jirin roobkii ma daayo haddii uu daa roobkii aynu helnana waxa uu kalifayaa duufaano fataha iyo daadad fataha oo baabiya dalagii laakiin dhirta haday jirto kayn cufan oo is haysata iyo dhirayn wanaagsan dalkii ka jiro bilic bay yeelanaysaa qurux bay yeelanaysaa beerihii baa ku wanaagsanaanaya deegaankii baa ku wanaagsanaanaya cimiladii isbedelaysa adduunka ayaynu la dagaalamayna yareynayna daaqsintii baa suurta galaysa wax soo saarkii kala suurta galaya dal aan dhir lahayn dal ma noqonayo marka waxaan shacweynaha Soomaaliyeed guud ahaan dawladda iyo shacabba ugu baaqayaa in aynu hirgelino in aynu dhirayno dalkeena quruxdiisa ka shaqeyno qoys kasta oo Soomaaliyeed waa inuu ka shaqeeyaa in uu geed beero qof kasta oo Soomaaliyeed waa inuu ka shaqeeyaa in uu geed beero haddii qof walba xil iska saaro 10 milyan oo geed ugu yaraan waa beeri kareynaa dalka dhan waa ka beeri kareynaa waxaan leeyahay wasaaradda balyo waaxda deegaanka oo xafiiska rasuulaha iyaguna dhiraynta waa ka shaqeynayeen oo qayb weyn bay ka qaadanayaan in deegaanka bilicdiisa iyo isbedelka cimilada adduunka aynu la dagaalanaa aan soo celino daaqsintii abuurno dhir beerno calafkeena inagu la soo baxno waa mas'uuliyadna saaran hadeynaan inagu gacmaha wax kula soo bixin gacmaheena cid wax inoo qabanaysa ma jirto maanta waxaynu halkan ku xaqiijinay xuska maalinta dhirta ee Soomaaliyeed 17 Abriil iyo daahfurka ololaha dhirbeerista Soomaaliyeed oo 1 milyan oo geed lagu beerayo 2019-2020